oday waayeel ah ayaa maalin walba quraanka ka akhrin jiray kitaabka isagoona xafidsaneen. wiilkiisa oo dhalinyaro ah ayaa wuxuu ku yiri aabihiis aabow waa maxay faa'iidada kuugu jirta akhrinta quraanka adigoon xifdsaneen. aabihii ayaa ku jawaabay dib ayaan kaaga sheegayaa haddii aad ka soo buuxisid dambiishan cawda ka samaysan biyaha badda. wiilkii ayaa ku yiri aabow suurtagal ma aha inaan ka buuxiyo dambiil biyo. aabihii wuxuu ku yiri isku day, balse dambiishu waxay ahayd dambiil dhuxul lagu qaadi jiray markeedii hore oo dhuxushu ay madoobeysay aadna u daldalooshay. wiilkii wuxuu u dhaqaaqay xagga badda si uu dambiisha biyo uga soo buuxiyo, balse dambiishu biyaha maysan xajin karin, way ka daadanayeen biyaha. wiilkii si degdeg ah ayuu ugu soo laabtay guriga aabihiis isagoo ku leh aabbo wax faa'iido ah ma lahan aadista badda, waayo dambiisha biyo ma xajin karto mana celin karto ee maxaan sameeyaa. aabihii baa ku yiri mar labaad isku day wiilkaygiyow. wiilkii sidii aabihiisu amray ayuu yeelay, weliba xitaa isagoo isku dayay tiro ilaa 5 jeer ah, laakiin kumuusan soo guuleysan inuu biyo ku soo qaado dambiishii. dambiishu dabcan waa isla wada fahansanahay waa dambiisha ka samaysan cawda. markii wiilkii daalay kadib wuu isdhiibay wuxuuna ku yiri aabow dambiishan biyo kama buuxin karo ee wax kale ii sheeg. aabihii ayaa ugu jawaabay kuna yiri miyaadan dambiisha wax isbedel ku arag intii hawsha aad waday. markaas ayuu wiilkii dareen ku dhashay isagoo ku yiri haa aabe, markii hore dambiishu waxay ahayd mid wasaqaysan oo dhuxushii lagu qaadi jiray ayaa madoobeysay, laakiin hadda gebigeedaba dambiishu waxay noqotay mid nadiif ah oo wasaqdii midabkeedii qarisay waa ay ka meermatay. aabihii ayaa wiilkiisii ku yiri dulucdii ujeedada aan dambiisha badda biyaha kuugu diray waxa ay tahay tani waa tusaale yar oo muujinaya sidii biyaha badda ay u nadiifiyeen dambiil dhuxul madoobeysay. sidaas iyo si ka daran ayuu quraanka kariimka u nadiifiyaa qalbiyada ku daxaleystay dambiga noocyadiisa kala duwan. haddaba quraanka waa hanuun, bogsiin, nuur iyo naxariis. ee waxtarka quraanka waxaa helaya qof walba oo akhriyay xitaa isagoo aan xifdisaneen. bishaanina waa bisha Ramadaan oo la soo dejiyay quraanka kariimka ah. allah naga dhigo kuwa eebba uu waafajiyay in quraanka waqtigooda ugu badan ay akhriyaan inta lagu guda jiro bishaan iyo bilaa kalaba. waxaa qoray